Almas Elman Cali oo arbacadii aanu soo dhaafnay lagu dhex toogtay xerada Xalane ee Muqdisho ayaa salaada janaasada waxa lagu la dugtay maanta masjidka Isbahaysiga Islaamka ee Muqdisho inta kadib ayaa lagu aasay marxuumad Almas meedkeeda masjidka Xaaji Aadam ee degmada Wardhiigle ku yaala oo awoowaheed uu ku aasan yahay مسؤولين isugu jira golayaasha kala duwan ee dawladda shacab iyo ehlada marxuumad Almas ayaa goobjoog ka ahaa aaska qaran ee loo sameeyay waxaana xubnihii halkaas ka hadlay ay ku dheeraadeen ka hadalka Almas Elman oo markaas ahayd gabar u ololeysa xuquuqda aadanaha Almas Elman Cali Ahmed waxay ahayd gabar khayr badan oo walaasheena waqtigeeda intaas leekaay إلهي وحنا وبرينا جنة فردوسة دتك أهل كهاي أو أي كدلتينا وأوجا تعسينينا إلهي قداش إذا نما فدنايو أيجا نحوها يسمري إيمان الله كسيو أيضا جنة فردوسة إلهي وتوجينا كتاب كذا قعنت ميدك الله أقوليو وحنا لأن هاي واحد دنبا الله النوبة باديو دتك أهل كيو دمانا وأوجا تعسينينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحريستو قاعد حق درنا هذا الشيء. مركا قف كست وقتي دلنا وقتنا ويدمنه وقتي إذا أنت عليها مركا إلهي أو نحريستو إلهي بنحريس ويديننا واردك أهلدي كتكتنا صبر إيمان كل إن شاء الله وإلهي إذا كينا بارتانك وباركين بدنا وحى حوش صعوته إن إلهي نحن كريتشين إن غدي كدم بيسي يبارتانك أسبوعون كسر دمايو مرسل اللي جعلها الله كدقو إلهي نحن نحريستو. gabadha Elman Cali Ahmed Xayle oo shalay geeriyootay daraad geeriyootay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto shalay ma ahayd daraad ama xilli aan dheerayn Elmas aabaheeda dhintay Elman Cali Ahmed isagoo dadka u adeegaya isagoo masaakiinta taakuleynaya isagoo khayrka ka shaqeynaya magaaladan Xamaraan joognay markii uu dadka u adeegi jiray uu dhintay oo gacan ka xaq daran dishay maantana Elmas dhimatay iyadoo dariiqii ku socota iyadoo wali dadkii u adeegaysa iyadoo kuwa dhibaataysan taakuleynaysa iyadoo qadiyada Soomaaliyeed iyo danaha dadka Soomaaliyeed ka shaqeynaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay gaar ahaan reer maxaa la yiraahdaa Xayle Deexay iyo reer Cabdisalaan reer maxaa la yiraahdaa aan iraahdee Cabdisalaan Xaaji Aadan reer Xaaji Aadan iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada Ilaahay samir ha ka siiyo gaar ahaan intii ay ka baxday iyo gurigii hoose iyo odageedii iyo insha Allah Ilaahay waxaan u rajaynaynaa Ilaahay inuu dhammaantood wada naxariisto waxaan aaminsanahay inay meeshii gabar iyo qof kasta oo Soomaali uu tamanin lahaa iyo dantii iyo wixii uu ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeynaysay ehelkeedana maanta cugdad ma ay qabaan dad badan dhintay oo aan la xasuusanaynin oo godka la geliyay iyadoon laba iska warsanin laakiin karaamada iyo sharafka iyo wanaaga ay ku dhimataan rajeynina insha Allah inay in badan oo kale to ka dambeeya uga dayan doonaan Ilaahay ha u naxariisto qabrigan ha u waasiyo assalamu alaykum warahmatullah si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay ka xun tahay dilka marxuumad Almas Elman Cali balse waxa ay sheegtay in baaritaan ay ku wado cidii ka dambeysay dilkeeda maxkamadna la soo taagi doono